siyaasi Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni gudoomiye ku-xigeenkii hore ee xisbiga Uxda Somaliland ayaa sheegay in wafdigii madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ee muddada ku sugnaa magaalada Boorama ay xal waara ay ka gaareen arrimaha nabadgelyada gobolka waa sida uu hadalka u dhigay mudane Buuni oo Sabtida 23 November warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama ayaa ku bogaadiyay wafdigii madaxweyne ku-xigeenka sidii ay bulshada arrimaha ugu guurgaleen iyo khilaafaadkii waxyaabihii yaryar ee soo baxay ayna dhaqanka u lahayn guud ahaanba gobolka oo soo afmeereen waa sida uu hadalka u dhigay oo hawlo shaqo u yimid madaxweyne ku-xigeenku isaga iyo wafdigiisii hawlihii mugalaha iyo sida bulshada arrimaheega ugu guurgaleen iyo sida khilaafaadkii iyo waxyaalaadkii yaraa soo baxbaxay ee dhaqankan u ahayn guud ahaan gobolka Awdal iyo bulshooyinkiisa ku dhaqan ay u soo afmeereen ay xal waara uga gaadheen ay bulshada isku warsadeen ay waxa weeye si niyad samaanana lagu sii galbiyay madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa aad iyo aad baan u hambalyeynayna shaqo wanaagsan weeyi dawladana waxa laga sugayay waxa weeye sanadka saddexaad oo bilaabmaya xukuumaduna ay abuurtay jawi horumarineed iyo shaqo abuur iyo mashaariic hor leh siyaasi Buuni oo hadalkiisa si wata ayaa ka hadlay khilaafka soo jiitamayay ee labadii sano ee jirtay xukuumaddu ee ka jirta doorashooyinka isbarkan ee wakiilada iyo deegaanka ayaa wuxuu yidhi Somaliland mushkiladaha haysta waxa kamid ah in la rabo in inago qawaaniin iyo shuruuc dhiganay 30 sano ku dhawaad ku faanayna qaran waxa weeyaan taabagalay oo isagu isku tashaday oo nidaam dimuqraadiyad axzaab badan hirgeliyay haddana maalin walba ku yootamaya ergo iyo in la yiraahdo waxa weeyaan qaanuunkii dalka laga ergeynaya ama wax shay qaanuunka dalku dhigaya laga wada hadlaya runtii arrimahaasi iyo ergeysma qabato dalkan shuruuc iyo dastuur ayuu leeyahay dastuurkana shuruuc ka farcanta jirta ugu dambeyn siyaasi Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni waxa uu ka dareen celiyay hadalka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga Uxda Somaliland hadallada gudoomiyaha xisbiga Uxda saaka ka jeediyay xafladii uu qabtay waxa weeyaan gudidii doorashada ee uu yiri Muuse iyo waxa ishaya Somaliland ee ismahayaan cirra iyo Somaliland waxa la Faysal waxa ishayay Muuse cirra ma ucid iyo madaxweynaha qaranka iyo xukuumaduna ismahayaan waxa ishaya waxa weeye waa la idinka xishoonayaa waa Somaliland iyo laba xisbi oo isku hayba ayaa raba qarankan inay dimuqraadiyadiisa dibin daabiyaan taasina inay baxnibnaanayso madaxweynaha qaranka waxaan soo jeedinaynaa Somaliland ku socon maysa adigana taariikh xumo lagaaga dhigi maayo doorashooyin buu qaban waayay iyadoo ka talaabsan laadahay laba xisbi mucaarad oo hayb wadaag ah oo Somaliland kala ka xishoon la taana waxa weeyad ugu marmarsiyoon maysaan inaad xisbiye qaran idinkoon ognahay in xisbiyadiin waliba kaaga ugu sii liita dadka waxa weeyaan xisbi qoys uu yahay oon ogahay anigu madaxda xisbigaaga aan kamid ahaa oo waxa weeyaan sida uu eegyahay muuqaalku maanta uu eegyahay inuu arkayn laba xisbi oo waxaad haysatiin labadiina ardaaya وانا سيدي ما انت ويتوانو مرخاتي فرايا بقر بور مدو شيغي لبدين حزب معارض waxaad soo magacawda wadanina nin habaryoon soo magacaaba adana ciida galay in adeerka soo magacawda halka uu madaxweynaha qaranku ka soo magacaabo 3 xubnood oo Somaliland kala laba xubnoodna uu ka soo magacaabo waxa weeyaan golaha guurtidu oo iyaguna muuqaalka Somaliland kala urradina wala furaya waxaanu geyn doonaa siyaasiyan ahaan inaanu mooshin corino baarlamaanka geyno wala qabto sanad baaba ka hadhay in laga soo hormariyo waqtigu urrada la furi lahaa Cabdirasaaq Umar Nicadawliyo telefishinka codka bariga Afrika Boorama si aad joogto uga hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaangeli channelka YouTube-ka ama dooro bogga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka